kulan ay magaalada Boosaaso ku yeesheen qaar ka mid ah waxgaradka oqaasha dhalinyarada iyo haweenka beesha iskale kursiga Hoob 36 oo hore ugu fadhiyay xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud ay ku sheegeen in kursigan laga leeyahay gobolka Bari aysan aqbali doonin inay u tartanto cid aan ahayn beesha iskale kursiga waxayna ugu baaqeen guddiga doorashooyinka iyo dawladaba inay wax ka qabtaan cabashadooda. waxaanu nahay dadka u dhashay gobolka Bari oo dega ilaa Dhariinbaar ilaa meesha la yiraahdo Raas Casayr ilaa meesha la yiraahdo Ceelaayo ilaa tuulada la yiraahdo waxa la yiraahdaa Qardho wixii ka sareeya dadkaas waxa ku soo duulay dad ka yimi Nugaal iyo Mudug waa lagu soo duulay kursigoodii baa rabaa in la dhaco horana waa u dacwoonay dawladda Puntland guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer goboleed hore waa u sheegnay haddana waa u sheegayn dadka waxa ku soo duulay dad ka yimi Nugaal iyo Mudug kuraastoodina haysta annagu waa joognay Nugaal kuraastooda markii la dooranayay annagu kamana hadlin innana kama haysan dhibaatadii ka dhacday Nugaal dadkii ka shaqeeyay ama waday ama nabadoonada ama suldaanada u ahaa dhibta geystay baa nagu soo duulay waxayna nagu haystaan kursiga iyaga Hoob 36 annaga iskale xildhibaanna noo jooga beesha leelka Bari ayaa kursigaas iskale waa kursiga hadda aan sheegay Hoob 36 kursigaas uu Bari buu yaalaa cidda ku fadhidana waa garanaysaaniin dagihiinna kuma cusba waa xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud ayaa hore ugu soo fadhiyay haddana aanu jecel lahay inuu soo dib ugu soo noqdo hadda shirkan ujeedadiisa waxa weeye dacwad qolyahan reer Nugaaleed waa u sheegnay hadda ka hor laba jeer baa sidaan oo kaleeto shir jaraa'id qabsanay walaalayaal oo nadaaya waa soo socdeen hadda ay dhaaftay geeska qabay maraysaa walaalaheen ay dhaaftay geeska qabo neef kugu soo socdo urgent ay hadda dhahay iska soo socdo seediyay marka waa iska qabanaynaa ilaahayna waxaan ka magan galnay wax dhibay inuu ka dhaco dhaxdaanada kursiga ismadiisu tahay sayro boqol soddon uu yahay kursi leedahay beesha Maxamuud ka sabtay hawaatan ka soo jeeda gobolka Nugaal inuu ku tartamo kursigaas ma doonayno waxaan rabnaa kursigaas in uu ku tartamo hawaatan ka soo jeeda gobolka Bari kursigaasna waxaa xaq u ah oo markii horena ku fadhiyay haddana ay shacabkiisu dooranayaan xildhibaan Sakariye Xaaji Cabdi waxaana leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba kursiga waa kursigaaga xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud oo hore ugu fadhiyay kursiga Hoob 36 xilligaana sharax madaxweyne ayaa dawladda ugu baaqay inay si dhow ula socoto tabashada beesha kursiga iskale waxaan maqlay oo aad ogtihiin kuraas la boobay kuraas ergadii la rabay aan la keenin kuraas odayaashii la rabay aan la keenin hadda idinku waxaad ka hadlaysaan gobol soo duulay gobolka Mudug xildhibaano ka tirsan oo xildhibaanadoodii qaatay oo halkan ku soo duulay oo qof tuurta ku sita gobolka Nugaal oo qof tuurta ku sita oo odayaal la garanayo oo waliba dadka u dhaxeeyay oo hadaa la kuraya qaarkood ismeeyeen ay daadihinayaan oo qaraabanayeen arintaasi meel ay ka dhacday male su'aashu waxa weeye reer Bariga ma tunjileec baa la biday reer Barigu dadka iskama dhaciyo ma kalluun kaliya cuntaan ya ma kalluun kaliya gaadataan way iska dhicinaynaa dawladdana waxaanu ka codsanaynaa inay arintan si adag oo serious ah oo hadaa la ku runyahay sharciga ku salaysan ay u gasho waa ognahay diyaaraday la socdeen guddiga bay soo raaceen in la aqbalo ma ammaanka iyo deganaanta dalka iyo magaalada tan iyo dalkoo dhan waxa mas'uul ka ah dawladda ka waanu u sheegaynaa dawladdana uga dacwoonaynaa ilaahayna uga dacwoonaynaa hadday intaas soo dhaaftana cidii laga xog badan yahay Allah arko